Time to take your seat. kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska oo la ciyaaray maanta oo Sabti ahayd kulamaasi waxaa kamid ah kulanka ugu horeeyay soo galay wuxuu ahaa kulankii Liverpool iyo kooxda Fulham oo ku soo gabagaboobay 2-2 kooxda Fulham ayaa gool ka hormatay ciyaarta qaybtii hore waxaan madax ugu dhigay ciyaaryahankooda la yiraahdo Mitrovic balse qaybta dambe ciyaarta ayaa Liverpool waxa uu bareejiyay ciyaaryahanka bedel ku soo galay ee dhawaan soo iibsadeen kooxda Liverpool ee la yiraahdo Darwin Núñez saasoo tahayne kooxda Liverpool ayaa penalty lagu helay markii uu qalad sameeyay daafacooda la yiraahdo Van Dijk kaasoo qalad ku galay Mitrovic isla Mitrovic ayaa qaatay kubadda isagana shabaqa ku hubsaday 2-1 ciyaarta soo maraysa oo ka hartay wax ka yar 10 daqiiqo ay kooxda Liverpool bareejaysay 2-2 ay ciyaarta soo gabagabowday goolka ugu dambeeyay waxa uu leeyahay Mohamed Salah sidoo kale Bournemouth ayaa 2-2 kaga badisay Aston Villa Leeds ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Wolves Newcastle United ayaa 2-1 kaga badisay kooxda 2-1 kaga badisay kooxda Nottingham Forest halka Tottenham gool laga hormaray ku bedeshay 4 gool iyo waxba 4 gool iyo hal Chelsea ayaa ciyaar la ciyaartay xilli dambe soo galeysay kooxda kubadda cagta ee Everton hal iyo eber ayaa Chelsea ku soo badisay iyadoo lagu ciyaaray garoonka kooxda kubadda cagta ee Everton waa kulamadii maanta dhacay shalay kulanka lagu furayna kooxda Arsenal ayaa 2-1 Crystal Palace kaga soo badisay garoonka ay kooxda ku ciyaarto kooxda Crystal Palace ee la yiraahdo Selhurst saasoo tahayne horyaalka waxaa kaalintooda ku jira kooxda kubadda cagta Tottenham oo 3 dhibcood leh iyadoo 3 goolna ay leedahay sidoo kale waxaa kaalinta labaad ku jira kooxda Bournemouth Arsenal 3aad sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Leeds ayaa kaalmaha kale ku jira inkastoo weli horyaalka kulanka ugu horeeyay la ciyaaray xilli ciyaareedkan daawade ciyaaraha ayaa soo gali doona Brito waxaan ciyaari doona kooxda kubadda cagta Man United iyo kooxda la yiraahdo waxay la ciyaari doontaa kooxda la yiraahdo Brighton halka Leicester City ay soo dhaweyn doonto kooxda Brentford kulamada horyaalada Ingiriiska ee lagu furay isbuucan ayaa xiiso gaar ah leh taageero maxaa u malaynaysaa horyaalka inuu ku dhamaan doono kooxaha ugu horeeya ee 6 kaalin ee ugu horeeya soo gali doona waxa loo yaqaan top 6 iyo 3 koox ee sanadka soo socda horyaalka ka hari doono kooxaha noqon doonaan waa ku maasantahay daawashada barnaamijkan ku falanqeynayna kulamadii dhacay maanta iyo shalay sidoo kale haddii ku cusubtaa channelka please subscribe saar sidoo kale like saar video si asxaab badan u gaaro waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan